السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا البرشة علمي ديني أدبرنيسو والله فائدوين كان النبي صلى الله عليه وسلم دين تعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وحي قفكي وضعوا علمي ديني كبرنيو مركا مرا إلهي وحي أفضلينيا وضدي مركا جنة أمري لها إلهي سدوك النبي صلى الله عليه وسلم وحي المامي إن ملائكته أي بالش هذا مركا كدباشو عرفك علمي الرادينية ملائكته أيغو رالكا qofka cilmiga diiniga raadinaya waxa uu markaa samaynayo. Haddaba wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamay in qofka caalimka cilmiga bartay in dambi dhaaf u weydiinayaan noolo kastoo ciriya dhulba ka nool xitaa kalluunka badda ku jira ayaa dambi dhaaf ku weydiinaya, xitaa quraanshada godkeeda ku jirta ayaa ilaahay dambi dhaaf ku weydiinaysa. Haddaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo tilmaamay qofka caalimka ah iyo qofka caabidka ah marka inta ay isdheer yihiin ama say u kala fiican yihiin ayuu nabiga noo tilmaamay. Wuxuu yiri qofka caalimka wuxuu ka fiican yahay qofka caabidka sida marka dayaxa uu uga fiican yahay xidigaha. Haddaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay in marka culimadu aanay ambiyada ka dhaxlin xoole balse ay ka dhaxleen cilmi. qofkii cilmiga qaatan nabiga wuxuu yiri dheef weyn baa aakhira u sugnaatay oo jannada ilaahay ayuu helayaa, camalkiisa ku badbaadaya, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa badbaadin doona. Haddaba cilmiga diiniga aanu barano, caruurtana aanu barno, kaasaa aakhiri adduunba lagu badbaadaa. nabigana sallallahu alayhi wasallam wuu sheegay arrintaas, axaadiis badan buu ku sheegay. fadlan ha lagu camal falo, hana lasii sheer gareeyo. baaraka allahu fiikum, jazaakum allahu khayr, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.